Assalaamu calaykum. Daawada habeen walba oo Jimco ah waxaad channelka Rogal Media ka daawataan qiso. Innagoo og in qisadu ay tahay waxyaabaha uu bini'aadamku ku cibra qaato. Haddaba, qisada aynu caawa idinka sheekay doonno waxa ay inta badan xiriir la leedahay cadaaladda iyo cadaaladsiinta. Qisadani ayaa waxa ay dhex martay macallin iyo ardaydiisa. Inta aynu u guda galin qisadu, waxaan kaa codsanaynaa inaad follow dhahdo page-kan, sidoo kalena aad share garayso muuqaalka si uu saaxiibada kale u gaaro. Sidoo kale aad subscribe dhahdo barta aynu YouTube ku leenahay ee Rogal Media. Mahadsanid. Bara sare oo dhiga cilmiga qaanuunka ama sharciga ayaa mid ka mid ah ardaydiisa weydiiyey magaciisa. Ardaygii ayaa si sax ah ugu jawaabay, kadib professorkii ayaa fasalka ka saaray ardaygii sabab la'aan. Ardaygii ayaa isku dayay inuu isdifaaco, balse professorkii ayaa si adag ugu diiday kana saaray kalaaskii uu cashirka ka jeedinayay. Ardaygii ayaa soo baxay isaga oo dareemaya dulmi iyo cadaalad darro. Ardayduna waa ay aamuseen. Dabadeed, ustaadkii ayaa cashir ka bilaabay isagoo ardaydii weydiiyey maxaa loo sameeyey shuruucda. Mid ka mid ah ardaydii ayaa yidhi in la xakameeyo habdhaqanka dadka. Arday kale ayaa yidhi in la dhaqangeliyo qaanuunka. Arday saddexaad ayaa yidhi si aanay kuwa xoogga leh u dulmin kuwa jilicsan. Professorkii ayaa yidhi haa, laakiin jawaabta weli ma dhammaystirna. Arday ayaa gacanta kor u taagay isagoo ku jawaabay ilaa cadaaladda la helayo. Professorkii ayaa yidhi haa, tani waa jawaabta si ay cadaaladdu u hirgasho. Haddaba, maxay tahay faa'iidada cadaaladdu? Ayuu haddana ustaadkii weydiiyey ardayda. Arday ayaa ka jawaabay oo yidhi si xuquuqda loo ilaaliyo oo aan cidna loo dulmin. Ustaadkii ayaa yidhi hadda waxaad i siisaan jawaab cabsi la'aan ah. Ma dulmiyey saaxiibkiin markaan fasalka ka eriyey? Markaas bay kulligood yiraahdeen haa. Professorkii ayaa yidhi isaga oo xanaaqsan, haddaba maxaad u aamusteen oo aad wax u samayn wayseen? Maxay faa'iido ah oo ay qawaaniintu iyo shuruucduba leeyihiin haddii aanan ku dhiiri karin dhaqangelintooda? Haddii aad ka aamustaan marka qof lagu samaynayo dulmi ama xaqdarro, isla markaasina aad difaaci weysaan xaqa, waxa aad waynaysaan dadnimadiinna, damiirkiinna iyo sharafkiinna. Dadnimada iyo sharafku gorgortan lagama galo. Dabadeed, professorkii ayaa u yeeray ardaygii u iriyey, wuuna raali geliyey isagoo ku sugan ardaydii hortooda. Waxa uu nagu soo afmeeray hadalkiisii, kani waa cashirkeennii maanta. Waa in aad xaqiijisaan inta aad ku dhex nooshihiin bulshadiinna. Haddaba, daawade haddii ay ku cajib gelisay qisadan, fadlan u sheer garee saaxiibada kale si ay iyaguna ugu cibro qaataan. Mahadsanid.